السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وإذن سلام يا صاحبتكم حنا channel علم سيدي ومر كله iyo muuqaal cusub channelka cilmi side hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar waxaan qaadan doonaa barnaamij ku fududeynaya dhammaan inaad duubato muuqaalada soo gala shaashadaada si fudud adigoon ku rafaadin waxa laga yaabaa markaad adeegsanayso barnaamijyada downloaderka ama wax lagu soo dejiyay ee ku jira sida caadiga ah Android-ka mobilada aad isticmaalayso in lagu yiraahdo barnaamijyada qaarkood lama soo dejin karaayo ee ku suurtagal weeysan inaad soo dejiso laakiin muuqaalka wuxuu ku fududeynaya muuqaal waliba aad aragto inaad u duuban karayso si waadix ah muuqaal waliba ay soo gala taleefankaaga sawir walba aad aragto waxaad u bedelan karaysaa video ama waxaad ka dhigi kartaa waxyaabo la daawanayo isku soo laabasho dambo ama waqti daqiiqada gaaban dabadeed ha ka tagin channelka application-kan waxaad ka heli karaysaa Play Store-ka adigoo qoray on screen recorder wixii lagu duubay si toos wuxuu u geynayaa gallery-ga halkaas aad ka raadin kartaa waad ka heli karaysaa gallery-ga oo waxa loo yaqaan screen recorder uu farabadan yahay ama screen recorder ku qori kartaa ama DU recorder aad ku qoraysaa xagga kore marka dhagsiisana waxa si toos kugu soo baxay imankan halkaas open yaan dhahayaa hadda aan install yaan dhahayaa hadii uu kugu cusub yahay oo awsan hore kugu shubnay balse hadda anigu uu shuban yahay uma baahni open yaan dhahayaa waxaan guda galayaa inaan dhammaan duubo muuqaalada aan u baahanahay ee ku jira teleefankayga ee ugu horeysa lafteeda wax alla wixii aan arko ee soo gala mobilkayga wixii doonaan nooc doon noqdaan inta badan laga yaabaa markii barnaamijka aad soo wato hadda barnaamijka hadda noo shuban on screen keyboard-ka ama Excel recorder ku qorayaa markaad soo wato wuxuu ku weydiinayaa astaamahan wuxuu ula jeedaa allow display over tabadan in aan tabyadan ama calaamadaha halkan oo kale illa soo muujiyo ma ogasha ogolaansho waaye allow waa dhehaysaa ogolaanaysaa oo marka barnaamijka inta badan wuxuu ku weydiinayaa allow permission hadii teleefankaaga inta badan permission-ka waxa la ogolaansho Android-ka casriga ee la isticmaalo waayahan application walba ama program walba in toos loogu soo dejiyo ma ogola for security reason ama arrimaha ammaanka aawadood ayaa company-ya soo saara WhatsApp-yada application-yadu waxay sameeyaan ammaan ama security form wax la yiraahdo ay u sameeyaan sidaas loo sameeyo marka allow aad dhahaysaa marka allow tiraado hadda ayuu barnaamijkaaga shaqeyn karaa oo waxa ku suurtagelaysa in waxyaabaha aan ku sheegayo hadda aad gali karaysaa adoon allow saarina inta badan kuma shaqeynaa barnaamijka hadaba markii aad barnaamijka soo shubato si toos wuxuu kugu soo galaa meelaha application-ka ay kugu shubihiin ama noocan uu noqon karaa ama sometimes wuxuu laga yaabaa inuu ku noqdo Excel recorder markuu noqdo programka furno magacu doona ka soo baxo furo barnaamijkii application markuu ku shubay inta badan aad dhagsiiso hore wuxuu kaga soo muuqanayaa shaashada hadda programkii inoogu dambeeyay aan shubnay oo kale halkan uu soo muuqanayaa marka dhagsiiso waan ku celinayaa halka waxa kaga soo muuqanaysa calaamadihii aan ku sheegayo kan si toos u fiiri halkaas marka aragto kan waxaad ka sameyn kartaa recording kaga ayaad ka bilaabi karaysaa hadii aan dhagsiiso hadda waxa ku bilaabanaya recording si live ah calaamadaas wuxuu ku leeyahay allow wala programka cusub Excel recorder inuu ku shaqeeyo media file-kaaga oo device-kaaga isticmaalo okay adeesa allow aad ku celinaysaa codka iyo guud ahaan inaan ku soo dhigo tan wuxuu ku weydiinayaa su'aalo badan ku weydiinayaa okay iska dheh halkaas waxa kaga bilaabo microphone-ka isticmaalaha okay start yaa dhahaysaa sidaas uu ku bilaabanayaa wuxuu tirinayaa kow ilaa iyo waqti ayuu ku tusayaa calaamadaha ku muuqda aan hadda arki doono kan koowaad wuxuu muujinayaa in la duubo kan kalena wuxuu sameynayaa stop oo la geliyo kan ugu hooseeyana aad arki doonto boorsada amal ee wuxuu ku ogolaanayaa in screenshot barnaamijka dheeri ah aad kala soo baxdo halkaas hadii aad rabto marka duubitaankaaga inaad joojiso waxaad isticmaalaysaa calaamadaas aad isticmaalaysaa pause halkaas iyo joojis guud noqonayaa waxaad arki doontaa muuqaalka halka hortaada kaaga muuqda ay ku qoran tahay video saved hadii aad play tirahdana waxa halka kaaga muuqanaya shaashadii aad hadda duubtay